sanadkii 1919 waxa si kadisa u dumay oo sida cawsha oo kale u kala yaacay nidaamkii uu ku dhisnaa dalkii midowgii Sovieti kaasoo ay ku mideysnaayeen jamhuuriyado iyo gobollo iyadoo muddo 100 sanadood ku dhow ay halka ka soo talinayeen hogaamiyayaal aaminsanaa nidaamkii hanti wadaaga dalkaasoo hoggaan u ahaa gaashaanbuurtii Warsaw kuna jiray quwadihii waaweyn tartankiisii dhinaca awoodda ee uu kula jiray dalka Mareykankuna u dhaliyay in caalamku uu kala qaybsamo laba qaybood hogaamiyihii uu ka bilaabay khilaafkii keenay burburka midowga Sovieti waxa uu xilliga ku sugnaa daartan filada ah oo ku taala xeebta badda midow kaasoo ahaa Mikhail Gorbachev oo ahaa madaxweynihii midowga Sovieti waxa uu bishii August ee sanadkii 1991 fasaxiisa ku qaadanayay dhismahan markii ay koox ka tirsan garabka mayalka aadka ah xisbiga shuucigu ay ka daba yimaadeen oo isku dayeen inay ku xidhaan guriga u deganaa si ay u badbaadiyaan nidaamkii midowgii Sovieti caalamka oo dhan waxa wada gaadhay in la laayahay madaxweynihii dalkii ugu dhulka weynaa adduunka Mikhail Gorbachev BBC's Business Breakfast kusoo dhawaada warkii dhaqaalaha ee subaxnimo oo idinka imanaya idaacadda BBC madaxweynihii midowga Soviet ayaa laga tuuray xukunka sida ay goor hore oo subaxnimo ah ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Ruushka ee TASS Gorbachev waxa lagu sifeeyay in aan godan karin shaqadiisa iyadoo warkaasi markii ugu horeysay uu soo baxay muddo saacada ah ka hor hoggaanka dalkana uu la wareegay siyaasiga midigta fog Mr. Yaniv dhanka kale madaxweynaha dalka Mareykanka George Bush ayaa dib ugu soo noqday aqalka cad isagoo kulan degdeg ah ka dalbaday golaha amniga qaranka ee dalka Mareykanka waxaanu soo saaray bayaan uu kaga hadlayo isbeddelka nidaamkii Sovieti madaxweyne Bush waxa uu ku dhawaaqay in wixii saacadihii u dambeeyay ka dhacay dalka midowga Sovieti aanay dastuuri ahayn Mareykankuna uu joojin doono kaalmadii dhaqaale ee uu siin jireen dalkaasi haddii uu sii socday inqilaabku ragga inqilaabka horkacay waxay ka mid ahaayeen siyaasiyiintii ugu dhowaa Mikhail Gorbachev kuwaasoo awood ku dhex lahaa xisbiga shuuciga hay'adihii sirdoonka iyo ciidankii casaa ee dalkaasi kuwaasoo mas'uul ka ahaa horumar la'aantii ku timi isbedeladii dhanka dhaqaalaha ee uu waday Mikhail Gorbachev waxaana ay aaminsanaayeen in hannaankii midowga Sovieti aanu sii jiri karin haddii aan gacan kaliya lagu maamulin inqilaabkii ay dhigeen waxa uu ku fashilmay muddo 3 maalmood gudahood markii uu madaxweynihii jamhuuriyadda Ruusiya Boris Yeltsin uu ka soo horjeestay raggii inqilaabka dhigay awooduna waxay xilligaa ku koobnayd Boris Yeltsin iyo Mikhail Gorbachev inkastoo uu midowga Sovieti xilligaasi ka sii dhacayay haadaantiisii ugu dambeysay ee uu ku burburay haddaba inkastoo ay muddo dheer ka soo wareegtay burburkii midowga Sovieti haddana ilaa maanta waxa in badan oo bulshada gobolkaasi ay isweydiinayaan haddii ay tallaabadii la qaaday ee lagu kala saaray midowgii Sovieti ay ahayd mid saxan iyo mid kale waa kan madaxweyne Vladimir Putin oo su'aashaasi ka jawaabay mudanayaal waxaad xasuusataan taariikhda jamhuuriyadda Raashiyada cusub waxa aynu ognahay in burburkii midowga Sovieti uu ahaa dhacdadii u xumeyd ee ina soo martay qarnigii 20aad haddaba muxuu ahaa inqilaabkaas oo inuu si fudud u burburo dalkii midowga Sovieti su'aasha jawaabaheeda waxaynu heli doonaa inta aynu ku dhex jirno barnaamijkeenan inagoo ka duulayna cadaymihii ay bixiyeen qaar ka mid ah raggii inqilaabkaasi ka qayb qaatay iyo dad kale oo goobjoogayaal ah muddo ka bacdi burburkii midowgii Sovieti shacabka dalka Ruushku waxay ku naaloonayaan horumarka dhanka dhaqaalaha ay gaadheen hanaankii shuuciyadda ee ummadda waddankaasi ka xidhay dunida inteeda kalena waxa uu hadda halka ka yahay oo qura shay la soo maray xilligii inqilaabkaasi dhacay waxa caqabado ka hor yimid dadkooda xanibay siyaasadii furfurnaanta dhaqaalaha ee dalkaasi laga hirgelin lahaa taasoo keentay in suuqyada dalkaasi cidhiidhi dareemaan iyadoo ay istaageen qorshayaashii xanaanada dadka waaweyn ayna fashilantay siyaasadii guud ee isbeddelka dhaqaaluhu dhaqdhaqaaqyadii doonayay madax bannaanida iyo kooxo gooni-goosada ayaa guud ahaan dalkii midowga Sovieti ka dilaacay taasoo ay soo raacday xaalad fawdo iyo deganaansho la'aan kuna adkaatay gacanka qabashada ammaankii dalku lahaa
jamhuuriyadii 15 ah ee ku koobnaa midowgii Soviet waxay bilaabeen inay ku shaqeeyaan maamul hoose taana waxaa ka faa'iideystay xubnihii mayalkooda adka ay ka tirsanaa hogaankii xisbiga hanti wadaagga ee ciidamadii militariga oo ku eedeeyay madaxweyne Gorbachev inuu ka hortagi waayay arrimaha soo baxay Anatoly Lokhanyov waxa uu ka mid ahaa madaxdii soo martay dalkii midowga Soviet. Речь идет о том, что был задан вопрос. arrintan waxaa lagala hadlay Mikhail Gorbachev laakiin lagama helin go'aankii ahaa in la adkeeyo awoodda xukunka. Усилится Горбачев. Будет решено. bishii August sanadkii 1991 waxaa muuqatay inay wax socdaan laakiin siyaasiyiintii muxaafadka ah ee u janjeeray dhanka nidaamka shuuciyadu waxay u muuqdeen kuwa sahashaday waxyaabaha wareegaya xilligaasi oo ahaa markii hogaamiye Gorbachev ku dhawaaqay in haddii la gaaro 20ka bisha August hannaan cusub loo dejin doono heshiiskii ka dhaxeeyay dawladda midowga Soviet iyo jamhuuriyadihii 15 ah. heshiiska cusub oo dhigaya in awoodda ay xukuumadda Sovietku haysato badankeeda la siin doono jamhuuriyadaha. heshiiskaasi waxa uu ahaa mid aanay muxaafidiintii xisbiga shuucigu wax badan kala socnin waxaana xilligaas xarraxaad ka bixiyay madaxweyne Mikhail Gorbachev laftiisa. heshiisku waxa uu ka koobnaan doonaa sidan soo socota waxaana isbedel lagu sameyn doonaa dhammaan shuruucda dhinaca bulshada iyo dhaqdhaqaaqa qoomiyadaha maalmaha soo socdana waxay noo qabsoomi doonaa waxyaabo badan oo muhiim inoo ah общественной и государственной жизни. Словом, договор общественной и государственной жизни. 14 августа месяц. Павлову. 14 bishii Agosto warqadii heshiisku uu ku cadaa waxaa si qarsoodi ah u helay ra'iisul wasaarihii dalka Mr. Pavlov. Договор, который должен был. waxaana qorshuhu uu ahaa in la saxeexo 20ka bisha Agosto. Договор назывался о союзе. heshiiskuna waxa uu ahaa in la dhiso isbahaysi ay wada yeeshaan dalal madax bannaan. laguma xusin heshiiska haba yaraatee wax ka hadlaya sii jiritaanka nidaamkii midowgii Sovieti. Он когда ra'iisul wasaaruhu warqadii heshiiska waxa uu gudbiyay saxaafadda. 15 bishii August qoraalkii ka hadlayay heshiiska waxaa lagu daabacay wargeyskii ku hadli jiray afka dawladda midowga Soviet taasoo cadeyn u ahayd in dalkii jamhuuriyadda midowga Soviet isu bedelayo isbahaysi dhex maraya jamhuuriyadda madax bannaan iyadoo kelmadii hanti wadaaguna ay halkaa ku hadhay. arrintaasi xilligaas suuragal lama ahayn siyaasiyiinta garabka miday ee xisbiga hanti wadaaga kuwaas oo taageerayay sii jiritaankii hannaankii midowga Soviet waxaana ay dareemayeen in heshiiska cusub uu meesha ka saarayo qaab dhismeedkii jiray awoodana siinayo jamhuuriyadda madax bannaan oo xallin doona mashaakilaadkooda gudaha si ay taa uga hortagaanna waxay isku dayeen inay tallaabo qaadaan. kulankii u horeeyay ay yeesheen siyaasiyiintii ka horjeeday hannaanka cusub waxa inoo sharaxaya wasiirkii difaaca xilligaas u qaabilsanaa dalkii midowga Soviet. все правительство. ra'iisul wasaarihii dalku lahaa Mr. Pavlov ayaa kulan isugu yeedhay wasiiradii xukuumadda. kulankaasi waxa uu ka dhacay xarun ay hay'adaha sirdoonku lahayd oo ku yaalay halka uu ku dhamaado jidka Lenin waxaanu gaadhay go'aamo ay ka mid ahaayeen in aan la ogolaanin in la saxiixo heshiiska iyadoo aan wax laga bedelin sababtoo ah waxa uu ka warwar qabay intaasi ay kala furfurto ciidamadii cuslaa ee dalku lahaa gaar ahaan gantaalihii nuclearka. markii aanu daraasaynay heshiiskii cusbaa ee la soo diyaariyay waxa noo muuqatay inay suurtagal tahay in midowgii Soviet uu kala yaaco ilaa iyo 180 dal oo madax bannaan sababtoo ah jamhuuriyadaha waxa ku sii dhex jiray maamulo xukun hoosaad haystay kuwaasi heshiis wax ka saxeexay taasina waxay ahayd masiibo dhab ah oo dhici lahayd. Vladimir Khrushchev waxa uu xilligaa madax ka ahaa hay'adii sirdoonka ee dalkii lahaa. heshiiskani waxa uu argagax ku ahaa shucuubta iyo hogaamiyaashiba haddii Gorbachev qalinka uu ku duug lahaa 20kii bishii August caalamku waxa ay aamini lahaayeen in midowgii Soviet wali taagan yahay.
xilligii u dhacay inqilaabkii soo dhaweeyay burburkii midowgii Soviet madaxweyne Mikhail Gorbachev iyo qoyskiisu waxay fasax ku joogeen ama ku qaadanayeen xarun madaxtooye oo ku taala jasiiradda Qirin ee kulaalaysa biyaha badda madow. sideed iyo tobankii bishii August xubnaha ka tirsan siyaasiyiinta shuuciyiinta aaminsanaa inqilaabka maagana ayaa soo booqday goobtii uu madaxweynuhu ku qaadanayay nasashadiisa. xubnahaas oo tiradoodu 6 gaarsiisay waxaa ka mid ahaa xogayihii xisbiga shuuciga Olin Shorik, madaxii hoggaanka madaxtooyada ee xisbiga Valery Bolin, taliyihii guud ee ciidanka dhulka Valentino Bereyinko iyo Gerushalan iyo Vavanko oo ka tirsanaa saraakiishii sare ee hay'adaha sirdoonka. arrinta aanu halkaasi u tagnay waxa ahayd in aanu kala hadalno Gorbachev in uu dib u dhigo heshiiskan dhaqangelintiisa waajibna ay tahay in loo xafido midowgii Sovieti hanaankii uu dhisnaa. Gorbachev waxa kaliya ku noqotay socdaalka xubnaha shuuciyiinta madax adag ay ku yimaadeen qasrigii uu ku qaadanayay nasashada. markii aanu tagnay halka Gorbachev waxa nagu wargeliyay in uu ku jiro fasax isla markaana uu xanuunsanayo isla markaana aanu doonayn inuu cid qaabilo. ra'iisul wasaaraha ayaa ku celiyay hadal oo sheegay inay jirto arrin muhiim ah oo u baahan in laga wada hadlo. xilligaana waxa aanu u baahnayn go'aan ku saabsan masiirkii waddanka. ugu dambeyntiina Gorbachev waxa uu aqbalay in uu naqaabilo oo nala kulmo. Он себя чувствовал плохо. Блокаду, по-моему. Gorbachev ayaa noo soo baxay isaga oo ka cabanaya xanuun dhinaca dhabarka waxaana uu u muuqday nin daal uu ka muuqdo oo aan la dhacsanayn sida ay wax u socdeen xilligaasi. waxaanu u sheegnay in aanu helay wixii heshiisku ka koobnaa qatarina ay soo food saartay masiirkii shacbigayaga dalkayaga nidaamkayaga iyo waliba dastuurkayagaba. General Valentino Bereyinko waxa uu ka mid ahaa saraakiishii u sarreeyay ciidamadii midowga Soviet. kulankaasi intii uu socday waxa uu sheegay Gorbachev in ay lama huraan tahay in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah, laakiin waxa uu igu jawaabay in aan ahay nin askari ah oo rumaysan xaaladda degdeg ah iyo roondooyin. taasi oo uu ku micneeyay in haddii la soo rogo xaalad degdeg ah ay micnaheedu tahay in hubku uu soo baxo wadooyinka iyo suuqyada magaalooyinka, taasina ay keeni karto in malaayiin ruux dhintaan. waxa aanu si cad ugu sheegnay in aanu diyaarinay xaalad degdeg ah in dalka lagu soo rogo, sidaas daraadeed looga baahan yahay inuu saxeexo, laakiin wuu naga diiday. markaanu hadalkii isku celcelinay waxa uu si xanaaq ku jiro noogu yiri madaxweyne ku-xigeenkii iyo ra'iisul wasaarihiiba waxay ku sugan yihiin Moscow. haddaba haddii aad doonaysaan xaalad degdega waa ka dalkii. kadibna uu naga kacay, hadal dambana nagamu sii dhageysanin. Ну, Вареников, да, вам надо просто спокойно заявлять. Ну, черт с вами. Mr. Bereyinko ayaa ku sii adkaystay rayigiisii kuna yidhi Gorbachev haddii aadan ka qayb qaadanayn go'aamada siyaasadeed ee inta kale ay doonayso, waajibkaagu waa inaad iscasisho, waayo shaqadaadu waa inaad ka qayb qaadato go'aamada siyaasadeed. Gorbachev ayaa ugu jawaabay oo yidhi war waxa aad doonaysid samee, waxaanse kuu sheegayaa in aadan ku guulaysanayn weliga. sidaasina kaga soo noqday jasiiraddii Gorbachev ku sugnaa. si kastaba ha ahaatee Mikhail Gorbachev waxa uu jiray dhammaan waxyaabihii ay ka dalbadeen xubnihii 6 ah ee shuuciyadu madax martay, waxaana uu ku sii nagaaday qasrigii madaxtooyada ee kulanku ka dhacay.
Mr. Anatoly Jereneri oo kaaliya ka ahaa madaxa xafiiska madaxtooyada ee jasiiradaasi ayaa inooga warramaya waxyaabihii goobjoogga u ahaa maalinta isagoo indhihiisa ku arkay kooxihii mayalka adkaa ee xisbiga shuuciga oo jarjaraya laymankii telefoonada iyo isgaarsiintii kale ee gelisay qasrigii u deganaa madaxweynuhu. dhismaha waxaa ku jiray 3 layn oo kala ah laynkii caamka ahaa kii xukuumadda u gaarka ahaa iyo mid loo kala oo jasiiradu isticmaasho saddexdooduba way go'naayeen oo may shaqaynaynin dadkii ka shaqaynayay qasriga madaxtooyadana waa loo diiday in ay ka baxaan xilligii inqilaabku dhacayay Mikhail Gorbachev waxa uu ku xayirnaa dhismaha isgaarsiinta laga jaray ee uu nasashada ku qaadanayay loomana ogolayn inuu dib ugu noqdo magaalada Moscow inkastoo cadeymaha ay bixinayaan raggii markii dambe ka qayb qaatay inqilaabku ay ka horrimanayaan warbixinaha sheegaya in Gorbachev la xiray isla markaana qasrigiisa laga jaray isgaarsiintii uu baahnaa. markii uu naga diiday inuu fikirkayagii nala qaato Gorbachev waxa aanu kaga tagnay dhismihii uu deganaa waxa suurtagal u ahayd inuu isticmaalo taleefanka gaadhigiisa ku xidhan ama kuwii yaalay guriga martida ee madaxtooyada ka midka ahaa. u kaadiya waxa aan doonayaa in aan wax caddeeyo marnaba may dhicin Gorbachev la xidhay oo lagu xanibay dhismaha halkaa waxaa ku sugnaa ciidamo gaadhaya ilaa 700 oo kala ahaa ciidankii madaxtooyada iyo ilaaladii xuduudda haddii uu doonayo in uu tallaabo qaado ama uu naxidhxidho ciidanka ayuu adeegsan lahaa. xubnihii muxaafidiinta waxay dib ugu noqdeen magaalada Moscow iyagoo aan wax guul ka gaarin inay ku qanciyaan Gorbachev inuu ku dhawaaqo xaaladii degdeg ahayd ee ay doonayeen iyagoo aqalka Kremlinka kula kulmay saaxiibadoodii ka warsugayay kulankana waxaa la isku raacay in tallaabooyin la qaado la iskana ilaawo madaxweyne Gorbachev isla markiibana waxaa la magacaabay guddi qaabilsan xaaladda degdeg ee waddanku galay. 19 bishii August sanadkii 1991 kooxihii mayalka adka ee xisbiga shuucigu waxay ka baahiyeen idaacadda iyo telefishinka dawladdu leedahay in dalku galay xaalad degdeg ah awoodii madaxweynenimo ee dalka lagu wareejiyay Anatoly Yerenayan oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii xilligaas. Указ вице-президента СССР в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР на основании статьи 127.7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР с 19 августа 1991 года вице-президент СССР Янаев. hogaamiyaashii muxaafidiintu waxay gacanta ku wada dhigeen xarumihii warbaahinta iyadoo wixii ka dambeeyay dhawaaqii ay soo saareen guddida xaaladda degdega ay telefishinadu baahinayeen ciyaaraha qoobka ciyaarka ee dhaqanka ka ah dalkaasi ciyaarahaas oo baahintoodu caado u ahayd markasta oo uu dhinto hogaamiye aqalka Kremlinka xukumay. inta badan dadka u dhashay waddanka xilligaasi wax badan kala ma haysoon xiisada oogan habeennimadana waxa shir jaraa'id qabtay guddiis magacawday ee shuuciyiinta inta jecel waddankooda waxa aanu u sheegaynaa in ay lama huraan tahay in aynu xad u yeelno oo hoos u dhigno fawdadan iyo qalalaasahan taagan muwaadiniinta midowga Sofiyeeti waa in ay wataan hawlahooda shaqo iyo mas'uuliyadda saaran waxa idinka dalbanaynaa in aad ixtiraamtaan xaaladda degdega ah ee lagu dhawaaqay. waxay ka bacdi markii lagu dhawaaqay xaaladda degdega
waxaa magaalada Moscow soo galay in ka badan 500 oo gawaarida dagaalka kuwaas oo isugu jira taangiyo iyo gawaarida kale ee gaashaan ciidamada booliskuna waxay isku ballaariyeen wadooyinka kooxda muxaafidiinta ee bandooga soo rogay ma ahayn kuwa dhexdooda isku waafaqsanaa doorka ay yeelan doonaan ciidamada ammaanku iyadoo aan la kala cadeyn in ciidamadu ilaalin doonaan dhismayaasha hay'adaha dawladda iyo inay caburin doonaan dadka banaanbaxaya mana jirin siyaasad guud oo ay ka wada socdeen gudida xaaladda degdeg xilligaa waxaan dhanka caasimadda u soo dhaqaajiyey 2 batalyan oo ciidamada ka mid ahaa manay ahayn ujeeddadu in ay ka hortagaan banaanbaxyada laakiin waxay ahayd in ay ilaaliyaan hay'adaha dawladda ciidamada waxa aanu u dirnay in la ilaaliyo nidaamka dawladda iyo xataa ka bulshada ahmiyadda ugu weyn ee ciidamadu waxay ahayd ilaalinta hanaankii midowga Sovieti oo khatar ku jiray annaga oo ka fogaanaynay in dhiig la daadiyo waxaan ahaa xogayaha xisbiga hanti wadaaga waxa aan la dhacsanaa in ciidamadu ku sugnaadaan wadooyinka waxaanu u baahnayn awood aanu ku weerarno aqalka cad ee madaxtooyada si aanu u qabanno oo u xidhno Boris Yeltsin Моя позиция всю банду около Белого дома штурмовать. ciidamada dalku waxay hoos mariyeen saraakiisha kala Yusuf iyo Khrushchev oo labadooduba doonayay in laga fogaado in dhiig la daadiyo iyadoo duqii caasimadda Moscow xilligaasi Kavil Bokhov uu ku dhawaaqay in ciidamadu aanay doonaynin inay dagaal galaan ciidamadu waxay isku ballaariyeen wadooyinka waxaana jirta in haweenku ay ciidamada u diyaariyeen shaah iyo waxyaabo kamida si cad iyo si dadbanba ciidamadu waxay u sheegeen in aanay iska hor imaad la galaynin shacbiga iyadoo kooxaha shucuunta ee mayalka adag waayay hogaamiye dhab ah oo ay isla og yihiin ayaa taasi waxay ku keentay inay xukunkii dalka haran kari waayaan xilli ay xubnaha qaarkood rajo ka qabeen in madaxweyne Gorbachev la qaato fikradahooda ayaa dhanka kalena xubnaha qaarkood waxay ku talinayeen in lagu dhawaado madaxweynaha jamhuuriyadda Russia Boris Yeltsin xubnaha yagii gudida xaaladda degdega ah waxaanu u tagnay Boris Yeltsin madaxweynihii jamhuuriyadda Russia annaga oo doonaynay in uu heshiis nala galo laakiin taasi may dhicin fashilaadayadii nagaga dhacday gaadhis la'aanta heshiiska yagana waxay ahayd sababtii keentay guul darradayadii weynayd sagaal iyo 10 August madaxweynaha Boris Yeltsin waxa la soo diristay naxdin iyo wareer ballaaran markii uu maqlay warkii ku saabsanaa inqilaabka ka dhacay Moscow isagoo xilliga ku sugnaa mandaqada ay degan yihiin dadka qaniga ee ku taala duleedka magaalada caasimadda ee Moscow xilliga dhismihii uu deganaa madaxweynuhu waxa ku wareegsanaa ciidamada sirdoonka ee midowga Sovieti madaxii ilaalada madaxweyne Yeltsin oo ninka lagu magacaabo Alexander Khrushchev waxa xilliga ahaa mid ka baqayay culayska ay ciidamada Soviyeetku ku keeni karayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Russia ahaantii waxaanu ahayn kuwa ka cabsi qabay in aan iswaajahno ciidamada sirdoonka iyo kuwa wasaaradda gaashaandhigga waayo tiro yar baanu ku joognay halkaa waxayna nagu baabiin karayeen muddo daqiiqado ah gudahood ciidamada sirdoonku waxay fadhiisimo ka dhigteen kaymaha dhexdooda dhankayagana ilaa 8 ruux oo kaliya ayaanu ahayn Ruslan Maskhatov oo ahaa raggii u dhowaa Boris Yeltsin waxa uu diidmo ka muujinayaa sidii uu subaxa u dhaqmay madaxweyne Boris Yeltsin subaxa waxaan u galay madaxweyne Boris Yeltsin oo niyad jabsan garkuma ku baxay wuxuu igu yiri khalaas tani waa tii inoogu dambeysay waana layna qabanaya laakiin waxaan ku celiyay in ay waajib tahay in aynu dagaalano ka hor inta aan cidina ina qaban
Все будет. Побреешься, умоешься. Boris Yeltsin taageerayaashiisu waxay rumaysnaayeen in go'aan kasta oo aanu saxiixin madaxweynaha midowga Sofiyeeti uu yahay go'aan aan sharci ku dhisnayn taasina waxay u noqotay fursad ay marka hore ku difaacaan mowqifkooda. Gennady Barabolos oo ahaa raggii ay aadka isugu dhawaayeen Boris Yeltsin ayaa inoo sharaxaya sida ay sharci ahaan isu difaaceen. kooxda muxaafidiinta ahi waxa ay jabiyeen sharcigii waddanka u yeelay iyaga oo awoodii dalka ka xoogaya madaxweyne Gorbachev awoodna umay lahayn in ay si sharci ah ku socdaan xilligaasi ka bacdi madaxweynaha oo kaliya ayaa xaq u leh inuu ku dhawaaqo xaalad degdega kadibna waxa loo baahnaa in ay aqbalaan Sofiyeetku iyagu ma ay ahayn kuwo maray wadada sharciga annaguna waxa aanu go'aansanay in aanu sharciga u isticmaalo hub aanu kula dagaalano kooxda inqilaabka waday. Подсказала нам, значит, незаконно, а тоже уязвимо юридически. Причем у нас же к тому и оно могло и обязательно должно было, но не было. И оружие. madaxweynaha Russia waxa uu ka soo baxay aqalka cad isagoo dul fuulay taangi dagaal si ay uga qudbadeeyo dadkii halkaas ugu soo baxay. kalkaaliyaasha Boris Yeltsin waxay diidanayeen in madaxweynuhu dusha ka fuulo taangi dagaal oo ka amar qaadanaya kooxda mayalka adiga hanti wadaagga rumaysan. На самом деле waxa aan ku wargeliyay inay halis tahay inuu taangiga dushiisa fuulo aniga oo ka shaki qabay in xeelad kale ku dhex qarsoonaan karto xiisadan taagan waxaana suurtagal ahayd in cid kasta ay rasaas ku ridi karto maadaama uu taagan yahay meel dheer laakiin may ahayn mid uu iga dhageystay isaga oo ku sii adkaystay go'aankiisii. Boris Yeltsin oo ahaa madaxweynihii u horeeyay ee hanaan dimuqraadi ah lagu soo doorto xilligaasi waxa uu khudbad u jeediyay dadkii halkaasi isugu yimid. Я говорю, Борис Николаевич, как туда? Boris Yeltsin waxa uu dadweynihiisu soo baxay u sheegay mowqifkiisa ku aadan gudida xaaladda degdega iyo dawladda ay magacowdeen. sabab kasta oo jirta falka ay wadaan kooxda midigta fog waxa aanu u aragnaa inuu yahay inqilaab. taa darteed waxa aan hadda ku dhawaaqayaa gudida xaaladda degdega ahay inay tahay mid aan dastuuri ahayn. khudbadaasi Boris Yeltsin waxay keentay dadweynihii jamhuuriyaddu ay la sabtaan isaga. 19 ilaa 20 bishii August sanadkii 1991 kumanaan dadweynaha isugu soo baxay qasriga madaxtooyada ee madaxweyne Boris Yeltsin ayaa diric gaashaan ah u noqday xafiiskiisii iyagoo isaga dhigay weerar kasta oo suuragal ah oo ay ku qaadaan madaxdii Sofiyeetku gaar ahaan gudida xaaladda degdega iyadoo agabkii xafiisyada ee yaalay dhismahaasi loo isticmaalay jidgooyooyin lagu xidhay wadooyinkii halkaas soo galay. kalkaaliyaashii Boris Yeltsin waxay kula taliyeen inuu asluub cusub u isticmaalo xaaladda jirta waxaana isagoo ka faa'iideysanaya maqnaanshaha xukuumad sharci ah oo midowga Sofiyeeti xilligaa leeyahay maadaama uu ka maqnaa Mikhail Gorbachev waxa uu soo saaray wareegto madaxweyne oo amraysa in ciidamada dalkii midowga Sofiyeeti ay maanta laga bilaabo ka amar qaadan doonaan isaga oo ahaa madaxweynihii jamhuuriyadda Russia. Mr. Gennady oo ka mid ah kalkaaliyaashii Boris Yeltsin ayaa fariin si toos ah hawada looga baahinayay waxa uu ku amray dhammaan ciidamada militariga iyo kuwa kale ee la soo geliyay inay dib uga baxaan caasimadda Moscow. dhammaan ciidamada midowga Sofiyeeti iyo ciidamada sirdoonka ee jamhuuriyadda Russia iyo ciidamada kale ee aan shaqo lagama maarmaan ah ka haynin gudaha caasimadda waxa la farayaa in ay saldhigyadoodii ku noqdaan. fariintii loo jeediyay ciidamadu waxay shucuur dheeraad ah gelisay dadweynaha iyadoo tiro dheeraad ah oo hor leh ay isugu soo baxeen wadooyinka. shacabka qaarkii waxay wada hadallo la yeelanayeen askarta saaran gawaarida dagaalka iyagoo isku dayay inay ku qanciyaan inay ciidamadu dib uga baxaan caasimadda. xaalad xasilooni darro ayaa ka taagneed aqalka cad ee madaxtooyada Russia habeennimadii 20 bishii August halkaas oo ay ku hor sugnaayeen dadweynihii taageersanaa Boris Yeltsin.
waxaa soo baxay warar sheegaya in ciidamada militarigu diyaariyaan weerar ay ku qaadaan aqalka madaxtooyada iyadoo dadweynihii halkaas ugu soo baxayna ay jabiyeen xaaladii bandowga ahayd ee xilliga habeennimada soo rogeen guddida xaaladda degdega現在ですね、NHK の支局があります、モスクワ佐渡越環状道路の前をソビエト軍の戦車がロシア共和国最高会議の方向に向かって、走っています。その数は、30台近く、走り抜けていきました。saacado yar ka hor xilligii salaada subax ee waqtiga Moscow waxaa markii ugu horeysay dhulka u daatay dhiigii dadkii banaanbaxayaasha ahaa iyadoo 3 ruux oo dhalinyaro ay ku dhinteen isku horimaadkii ay la galeen taangiyada duulaanka kuwa aqalka baarlamaanka dhacdadaasina waxay dhabarjab ku noqotay kooxdii muxaafidiinta ahaa ee shuucinimadu madax martay inkastoo ay jireen xubno ka mid ah guddida xaaladda degdega oo doonaya in ciidamadu ay sii ahaadaan magaalooyinka dhexdooda haddana madaxii ciidamada sirdoonka Mr. Rochkov iyo wasiirkii difaaca Yusuf Kov waxay go'aansadeen inay ciidamadooda ka saaraan caasimadda Moscow subaxnimadii 21 bishii August waxa aan aaday si aan u arko wasiirka difaaca Yusuf waxa uu i weydiiyay bal in saraakiisha sare ee ciidamadu ay doonayaan in ay dib uga baxaan magaalada waxa aan u sheegay in go'aanka noocaasi ah uu yahay mid uu isagu leeyahay laakiin aanay xaq u lahayn taliyayaasha sare ee ciidamadu haddii ay ciidamada la baxaan qorshaha iyagu waxa uu ahaa in aanu ka hor nimaadno laakiin go'aankaasi waxa uu ahaa mid mar horeba la sii gaaray madaxii ciidamada sirdoonka ee midowga Soviet Mr. Rochkov oo ka mid ahaa guddida xaaladda degdega ayaa isaguna ka hadlay wixii subaxa dhacay annagu waxa aanu sameynay wixii waajib nagu ahaa laakiin natiijadii ka dhalatay waxay ahayd mid aad u xun markii aanu soo rognay xaaladda degdega ah waxa aanu ku sii tashanay in haddii ay timaado in uu dhigdaato in aanu qaadno oo aanu joojino xaaladda degdega habeenkii 21 bishii waa tii ay dhinteen 3 dhalinyaro ah xilligaasi waxa aanu go'aansanay in aanu joojino xaaladda degdega ah wasiirkii dhanka difaaca ee dawladda midowga Soviet Mr. Yusuf ayaa isaguna waxa uu sharax ka bixinaya sababta ay ciidamadiisa uga saaray caasimadda military waxaan shaki ka qabnay waxyeelada dadka rayidka ah soo gaadhaysay anagoo ka cabsi qabnay in dagaal sokeeyo qarxo dambi falayaal abaabulanina dilaacaan ciidan ahaan waxaanu muujinaynay inaanu daacad u nahay shacabkayaga rasaasta qoryahayaga ku jirtana aan loo adeegsan dadkayaga rayidka ah markii la gaaray xilligii subaxnimada taangiyada dagaalka iyo gawaarida gaashaamada ee dagaalku waxay bilaabaan inay dib uga baxaan caasimadda xaaladda degdega ahayd ay soo rogeen kooxdii intii wadaagga rumaysnaydna waxay socotay muddo 2 maalmood ah waxaana fashilmay isku dayga ay ku doonayeen inay ku hor istaagaan hirgelintii heshiiskii qeexiyay nidaamkii cusbaa ee Sofiyeedka lala damacsanaa iyadoo culays iyo isku horimaad adag kala kulmay madaxweynihii jamhuuriyadda Russia Boris Yeltsin Boris Yeltsin oo ku guuleystay kooxdii inqilaabka ku afduubisay xukunkii waddanka waxay keentay in Mikhail Gorbachev oo weli ku sugnaa jasiiraddii badda madow ku taalay ee uu nasashada ku joogay inuu ka soo gudbo aamusnaantii uu afka ka xidhay isla markaana uu ka hadlo waxa ka soconaya dalkii uu hogaamiyaha ka ahaa isagoo si toos ah dadka ugala hadlay telefishinka ii ogolaada in aan fariintayda idin soo gaarsiiyo falkii ay qaadeen kooxdii xaaladda degdega ah soo rogtay waxa uu ahaa khiyaamo ay ka galeen shacbiga midowga Sofiyeeti waxaana lagu macnayn karaa inqilaab aan dastuuri ahayn saqdi dhexe markii ay habeennimadii 22 bishii August sanadkii 1990 Mikhail Gorbachev waxa dib ugu soo noqday magaalada caasimadda ee Moscow halkaas oo lagu soo dhaweeyay
waxyar kadib markii uu caasimadda soo gaaray Mikhail Gorbachev waxa uu xabsiyada dhigay xubnihii guddida xaaladda degdega ah ee soo rogay kuwaas oo ugu horeeyay madaxweyne ku-xigeenkiisii laakiin saddexdii maalmood ee ku xigay waxa la baabiyay quwaddii siyaasadeed ee Mikhail Gorbachev iyadoo awooddii dalku isugu soo ururtay gacmaha Boris Yeltsin 22 bishii August sanadkaasi 200 oo kun oo ruux ayaa isugu soo baxay dabaaldegyo uu Boris Yeltsin u sameeyay guusha uu ka gaaray dhinaca siyaasadda waxay ahayd maalintii ugu horeysay ee si cad meel fagaaraha looga cambaarayo xisbiga hanti wadaagga oo dalka midowga Soviet soo xukumayay muddo 8 sano maalintaasi sidoo kale waxay ahayd maalintii ugu horeysay ee Boris Yeltsin ku dhawaaqo in jamhuuriyadda Russia ay si toos ah uga baxday midowga Soviet calankii hore ee Russia oo noqon doono calanka cusub ee jamhuuriyadda cusub yeelan doonto waxaa la fashiliyay inqilaabkii dalkan lala damacsanaa beesha caalamka oo ugu horeeya madaxweyne Bush waanu gaarsiinay go'aankayaga maantana waxa aanu ku dhawaaqaynaa in jamhuuriyadda cusub ee Russia oo ah mid madax bannaan oo hantigoosi ahi ay yeelan doonto calanka saddex midablaha ah intii arrimahaasi dhacayeen Boris Yeltsin waxa ugu lamaanay sidii uu awoodda oo dhan ugala hoos bixi lahaa Mikhail Gorbachev 26 August sanadkii 1990 Boris Yeltsin wuxuu baarlamaanka hortiisa keenay madaxweynihii midowga Soviet Mikhail Gorbachev madaxweyne Gorbachev wuxuu halkaa dhaliilo adag uga jeediyay raggii ay isu dhawaayeen ee inqilaabka isku dayay halkan maanta waxaan idinku hayaa go'aamadii u dambeeyay ee ka soo baxay fadhigii golaha wasiirada ee midowga Soviet inkastoo aanan si wanaagsan u akhriyin hortiina ayaan hadda ku akhrin doonaa dhanka kalena madaxweyne Boris Yeltsin ayaa baarlamaanka hortiisa ka sheegay go'aankii ugu adkaa ee taariikhda midowga Soviet kaasoo uu ku cadeynayay inuu qalinka ku duugayo go'aan qeexaya in la mamnuucay xisbiga hanti wadaagga ah ee midowga Soviet waxaan maanta halkan ku saxeexi doonaa go'aan madaxtooyo oo lagu mamnuucay xisbigii hanti wadaagga iyo dhaqdhaqaaqyadiisii oo dhan daqiiqadaasi waxa ahayd markii uu Boris Yeltsin xukunkii dalka ka saaray gacmihii Mikhail Gorbachev isla markaana casilay madaxweynihii u dambeeyay ee dalka midowga Soviet maalba ka bacdi Mikhail Gorbachev wuxuu iska casilay xogayihii guud ee xisbiga hanti wadaagga ee midowga Soviet halkaas oo sidoo kalena uu kala diray golihii dhexe ee xisbigaas talaabooyinkaasi ka bacdi waxa meesha ka baxday awooddii dawladnimo ee midowga Soviet muddo 100 habeen ka bacdi markii la kala diray xisbiga hanti wadaagga ee midowga Soviet waxa dhismo yar oo daara oo ku taalay bartamaha deegaan baadiya oo ka tirsan kaymaha jamhuuriyadda Belarus ee ku kulmay madaxweynayaasha saddexda jamhuuriyadeed ee kala Russia, Ukraine iyo Belarus kuwaas oo nabarkii ugu dambeeyay ee dubaha ee sida cawsha u kala yaaciyay ku dhuftay hanaankii midowga Soviet iyagoo hogaamiyaashaasi ku dhawaaqay inay dalalkoodu ka baxeen hanaankii midowga Soviet isla markaana ay noqdeen jamhuuriyado madax bannaan taasoo keentay in dhammaan jamhuuriyadihii kale ee midowga Soviet ay iyaguna qaadaan tallaabo la mid ah ay ku tallaabsadeen saddexda jamhuuriyadood sidaana waxa si kala dambaysa oo aan soo noqon lahayn ugu burburay dalkii dunida ugu dhulka weynaa ee midowga Soviet